السلام عليكم كل wanaagsan asxaabta ku xiran bartaan aad baad u mahadsantihiin marka hore muuqaalkeena maanta waxaan ku lafagurayaa haweeneydan ku muuqata hadda sawirkeedana aad u jeedid haweeneydan asal ahaan waxay u dhalatay dalka Pakistan waana haweeneydii ugu horeysay ee ra'iisul wasaare ka noqota dal islaami ah waana haweeneydii ugu horeysay ee muslim ah ee dal islaam ah ka noqota ra'iisul wasaare haweeneydan waxaa lagu magacaabaa Benazir Bhutto waxay dhalatay sanadii 1957 waana mid kamid ah haweenka muslimiinta ah ee saameynta leh inkastoo gabagabadii shirqo lagu dilay dhibaato aad u weyn haweeneydan ee wajahday marka hore waxaan eegaynaa taariikhda haweeneydan iyo waxyaabaha kala duwan cajaa'ibta u gaarka ah iyada waxay ku dhalatay magaalada Karachi ee dalkaasi Pakistan waxay ka dhalatay qoys siyaasadda ku dhex jira hantiilayaalna ah waxayna wax ka baratay jaamacadaha Harvard iyo sidoo kale Oxford waxayna sidoo kale mar noqotay madaxa midowga jaamacadda Oxford aabaheedna waxaa lagu magacaabi jiray Zulfikar Bhutto waxaana isaguna mar loo doortay ra'iisul wasaare dhanka xisbiga bulshada dalkaasi Pakistan haweeneydan cajaa'ibteeda iyo waxyaabaha u gaarka ah waxaa kamid ah in iyadoo haween ah ay ku dhiiratay in ay ra'iisul wasaare ka noqoto dalka Pakistan lagu magacaabo inkastoo markii dambe cadaadis xoogan ay la kulantay dhibaato aad u weyn haweeneydan ay soo food saartay Benazir Bhutto haweeneydan markii ay yareed luqadda Ingiriiska ayay si fiican ugu hadli jirtay sidoo kale waxay ku hadli jirtay luqadda Urduga waliba si fudud iyo luqadda lagu magacaabo Sindhi hooyadeed ayaana sidoo kale waxay bartay luqadda Beershiyaanka waxayna sidoo kale ahayd gabar waxbarashada aad u wanaagsan door muuqdo oo firfircoon ku leh aan la dafiri karin doorkeeda iyadoo da'yar ayana sidoo kale waxay ka mid noqotay golaha wasiirada dalkaasi haweeneydan waxayna sidoo kale mar noqotay wasiirka tamarta ee dalkaasi iyo wasiirka arrimaha dibadda ee isla dalkaasi Pakistan iyadoo aad u da'yar maadaama ay siyaasadda baratay muddo badanna ay ku dhex jirtay haweeneydan lagu magacaabo Benazir Bhutto Benazir Bhutto taariikhda haweenka muslimiinta ah saameyn ay ku leedahay sanadii 1988 ilaa 1990 ayana ra'iisul wasaare ka ahayd dalkaasi Pakistan waana mid kamid ah haweenka ilaa iyo hadda ku jira diiwaanka taariikhaha dalkaasi Benazir Bhutto haweeneydan ku muuqata hadda inkastoo markii dambe shirqool lagu dilay haweeneydan ugu dambeyntiina la qaarijiyay siyaabooyin kala duwan ayaana dilkeeda looga hadlay ilaa iyo haddana waa mid kamid ah dilalkii saameynta lahaa ee dalkaasi Pakistan ka dhaca haweeney loo geysta taariikhda dunida muslimka ahna waxa ay haweeneydan kaga jirtaa baal dahab ah oo aan la dafiri karin runtii waana baal ilaa iyo hadda ka muuqda guud ahaan iyo sidoo kale sida ay u ahayd mar mid kamid ah haweenka ugu saameynta badnaa 2007 ayayna ku geeriyootay Punjab dalka Pakistan iyadoo 54 sano jir ah shirqool loo geystay ayayna haweeneydan ugu dambeyntii ku geeriyootay iyadoo olole doorasho iyo siyaabooyin kala duwanba ku jirta waana bartilmaameedsaday ugu dambeyntiina waa la toogtay halkaasi ayayna ku geeriyootay muuqaalkii maanta intan ayaan kusoo koobayaa waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena tani muuqaalkeena xiga maalinta berri waxaa idinkaga tegaya sidaas iyo ammaano Allah